علي يرى وحو شيغay maxaan ku laada beenti maaha in tukan loo liibto madmoodasa taa halka kama soo kacay tukanka caarbo halka iska fadhiya nin sharaf la ayuu ahaa maxaan ku laada markaan meelaha xoolaha ku eegno oo kala ama geel oo kala maariga oo kala marka gacanta loo sheeriyo sababta si fiican ku soo dhaweynayay maxaan ku laada wuxuu ku siinayay lacag oo kale ama biskuud oo kale wuxuu hayay ku siinay marka si fiican dadka uu caawin jiray dil iyo deeq noolha wuxuu ku siinayay lacag oo kale ama biskuud oo kale wuxuu Assalaamu alaykum salaam barmaanta waxaan waynaa cali magaca xamsi war madaxweynaha ma haysta mad garan saxilka waan garanay Mustafa Akshar madaxweynaha horena mad garan sa waan garanay Cabdi Axmed Cumar Balada labada madaxweyne maxay ku kala duwan yihiin marka madaxweynaha hore iyo madaxweynaha ku kala dugnaayeen madaxweynaha horta Cabdi Axmed Cumar nin sharaf la ayuu ahaa maxaan ku laada markaan meelaha xoolaha ku eegno oo kala ama geel oo kala maariga oo kale marka gacanta loo sheeriyo sababta si fiican ku soo dhaweynayay maxaan ku laada wuxuu ku siinayay lacag oo kale ama biskuud oo kale wuxuu hayay ku siinay marka si fiican dadka uu caawin jiray dil iyo deeq noolha marka masaakiinta aad buu caawin jiray laakiin kan imika Akshar si fiican walaal dadka uma caawiyo horta taas waa run Cali yar wuxuu sheegay maxaan ku laada beenti maaha in tukan loo liibto madmoodasa taa halka kama soo kacay tukanka caarbo halka iska fadhiya marka wax mobile ma leedahay oo xambiraha bulshada wax ma ka garanaysaa waxba kama garanayo wallahi dadka ma ka arka falawi saariyo xasiyo laakiin mobile milhiyo kuwan iga waawina saaxiibada ma la eegayo ka arka Cabdi Axmed Cumar yaa hay marka dadka ku daawanaya dad badan baa ku daawanaya meel walba laga daawanaya marka maxaad leedahay fiidiyoga lowdha sheeshal gareey waan leeyahay muuqaal kulan degdeg ah ay golaha kaabineega ee deegaanku saaka ka yeesheen wiilkii yaraa ee geljiraha ahaa ee muuqaalka yar isku barbar dhigay madaxweynihii hore ee deegaanka Cabdi Maxamuud Cumar oo uu ku sheegay inuu ahaa nin dil iyo deeqba lahaa oo geesi ah iyo madaxweynaha deegaanka ee hadda Mustafa Akshar oo uu ku tilmaamay nin dukaan loo dhiibtay inuu yahay meel uu joogana garanaynin odhaahdan wiilka yar ee geeljiraha ah ayaa waxay ka saameyn badnaatay munaasabadii dhannayd ee boqoraalka qowmiyadood ee kala jinsiga diinta dhaqanka iyo luuqadda ahayd loogu qabtay magaalada Jigjiga diyaargarowgeedana bilaha lagu jiray oo wax hadal haya siday u dhacday iyo meel laga hadlayo toona aysan jirin haba yaraatee waxaa Mustafa Akshar aad u daraqday odhaahdii wiilka yar ee ahayd inuu yahay nin dukaan loo dhiibtay taasoo ka dhigan inuusan koob shaaha cidna u shubin isagoo xuudkii hantida ummadda wada liqay ah balse ma ahayn inay jumladaasi daraqdo oo isaga ayaa horay u yidhi sida tan ilowsho dhowaa ma'muulba ayay shacabka deegaanku leeyihiin iyagoo aad ula yaaban sida uu wiilka yari u karkariyey wadnaha iyo beerka Mustafa Akshar iyo jaalkiisa kula bahda ah xatooyada xoolaha ummadda Mustafa Akshar ayaa golihiisa kaabineega u soo jeediyey sidii laga yeeli lahaa wiilkan yar Xuseen Qaasim iyo xubnihii kale ee Reesaaq ayaa soo jeediyey in maadaama uu ka yari sheegay inuu 15 sano jir yahay in la soo qabto oo xabsiga la dhigo maadaama uu faham buuxa oo fashil ku ah xukuumadda reer Akshar bixiyey halka Faatax iyo laba xubnood oo wehelisa ay soo jeediyeen inaan lagu mashquulin wiilkan yar ururiskii fikirka golaha ayaa lagu soo xidhay in hoggaanka nabadgelyada ee deegaanka Dayib Axmed uu hawshaas qaato oo soo qabto ka yarka ah meel kasta oo uu joogo kadibna wuxuu hoggaanku howlgeliyey maamulka gobolka Doolo iyo hay'adaha amniga ee aaggaas ku sugan oo uu ka adeejiyey inay ka yar soo helaan oo soo qabtaan kadibna soo gudbiyaan si xukun loogu jeedo oo cabdigii uu sheegay xabsiga Addis Ababa loogu geeyo Mustafa Akshar oo jiif iyo joogba diiday wuxuu kaloo xalay isugu yeedhay odayaashii beesha oo Garaad Bashiir iyo Doolaal Xalxaali ugu horeeyaan isagoo wax ka weydiiyey siday u arkaan hadalkii wiilka yar ee geeljiraha ahaa waxayna ku gubaabiyeen in ka yar la soo qabto si aan loogu dayanin oo geeljira yar oo badani xidhiidhka uga soo hadlin waddo ku furantayna u noqonin in hadda ayuu dhow yahay ee ummadda laga aamusiyo ayay aragtidooda ugu cabbireen waxayna farta ku fiiqeen in reerkii isaga ahaa uu hawshan ka dambeeyo iyagoo wiilka moodayay reer Cabdille balse uu makaayil ku noqday iyadoo hadalka wiilku aad u damqay gaar ahaan reer Akshar oo dhimbil dab ah ku noqday iyo weliba kabaqaadkooda oo ay reer Awaare dhagax buur iyo gunagado u horeeyaan ayaa haddana wuxuu aad uga qaylisiiyey waxgaradka reer Isaaq culimo iyo caamaba
oo khaasatan leefleefta reer cagjar iyagoo u arka in xukuumaddoodii la weeraray dulqaadyarida xukuumadda gacanlaabnideeda xatooyada xoolaha ummadda cadaaladdarrida munaafaqadda lugooyada meesha taallaa iyo waxyaabo kale oo ay iyagu uun og yihiin ayuu hadalka wiilku taabtay wuxuuna damqiyey boogaha iyo nabarrada ay geysteen ee ka hurdila yihiin cabdi baa wax qabtay iyo deeqsi buu ahaa xaafaddu ma maqli karto haddaad weyddiiso gobolka jarareed cabdi ka hor imise degmuu ahaa iyo hadda waa imise degmana way kaa aamusi bal intaan wax kaleba loo kicin cadaaladdarradu xaafadda reer cagjar bay ka bilaabataa oo badhkeed badhka kala dulminayaa bal intaan wax kaleba la gaadhin iyaga ayayna ku dhammaataa sababta keentay cadhada intaas la eg ee mustafa cagjar iyo xukuumaddiisu wiilka yar hadalladiisu jiif iyo joogba ugu diideen waa caleentii reer cagjar oo cidhka ka soo dhacday iyo waxtar la'aan muuqato oo la wada arko muddaxileedkiisii marka laga reebo waxqabadkiisa uu caanka ku noqday ee xatooyada xoolaha ummadda aargoosiga qabiilbeegsiga munaafaqadda xadhigmaranka cadaaladdarrada iyo toban wejiilaynta waxaan qoyska wiilka yar ku wargelinaynaa inay duurka ku hayaan wiilka inta reer cagjar laga duminayo maadaama hay-adihii amniga ee deegaanka maamulkii gobolka doollo degmada awaare iyo gunagado iyo sidoo kale waxgaradkii beeshu doollo ku soo wajahan yihiin si wiilka loo soo taxaabo waxaa xusid mudan in ninka ragga ahi uu dil iyo deeqba yeesho laakiin labalabuuf ku yeelanin dil iyo deeqdana uusan macnaheedu ahayn in shakhsigu wax dilay ee go'aan adeeg tilmaamayo marka waan macnihii waan yaabay oo aga waaban gebigiiba waa la weeraray marka qaybaha macal iqa khayiro igu yiraahday warbahal kubaysan oo qabaala iyo hadda jiyo ka soo baxay meesha galay diyaarso qayb aqal xoodo yiraahdo ilkaha waaweyn qayb iska rid oo timaha iska xiiro fanaanadan kala gogoyo qayb nooc bay tiraaday marka anu waxa damaan waan aamin waay marka macnihii waan ogahay in macnihii mustafa cagjar soo afkiis ka yiri aniga ila kaftama icaaya macnihii xoriyatul qawl in la leeyahay macnihii waan ogahay waxa macnihii maan rumaysanay hawshidaas ka sii watay waay wax meeshii maalinka aan ku kulanay in muuqaalka duubay xagee horta waxa iska leey borsala goor casar aan geel soo rogay in badanada meesha mar isku nimaan waxaa jiray dad badan oo muuqaalkaaga markay arkeen siyaabo kala duwan fasirtay haye qaarkood waxay lahaayeen adiga u soo dhiibay haye oo aniga igu eedeynayeen haye oo yacni adaa ka dhaxlay lahaayeen haye qaarkood waxay lahaayeen ninkani waa heego haye qaar waxay lahaayeen wiilku bisku dhiiqan budda u baahan yahay hadduu bisku dhiiqan dalbaday ma garanaysaayay madaxweynuhu baalka hala gaadho hadalladaas maxaad ka leedahay iyaga horta hadallada waan ka jawaabayaa waxaan ka leeyahay qaybtan ku tiraahday macnihii adaa u soo dhiibay aniga macnihii ninkan mun waxbay dhiibin su'aalo i weydiiyey su'aalihiina waan uga jawaabay bal idinku macnihii dee waxaad aragteen bal fiiriya suuya in qof wax loo dhiibay iyo wax kale waa la kala fahmayaa sooma anu ninka su'aalo i weydiiyey su'aalihiina waan uga jawaabay laakiin haddaad idinku ma garanaysaa ninka si cad wax u dhahaa aniga ninkaas mun waxbay dhiibin laakiin dee adiga laftaada macnihii naas dhibtoo maaha macnihii cidda wax kula waa wax kuwa adiga kaa xunxun oo meelaha maxaa iska qeylqeylaye dee mustafa cagjar hadduu wax ku dhaho aniga weydii laakiin dadkan horta maamaha soomaaliyaadba waxay ahayd hawl ninkaa xigo iyo arrin ninkaa xigo midna laguma degdego raggan iska cabaadcabaadaya anigu sheekadooda waxba ma arkaba horta waan maqlay waxaa lagu yidhi ninka awaankaa baa la haystaa adigu waxba laguma haystee dee awaanka indhala-aan baa lagu haystaa ninka anigu wuxuu weydiiyey wixiina waa naga jawaabee dee hawshu waa aniyo mustafa cagjare dadka kale naga dhexbo mahmaadi maxaa tiri mahmaadi qaybtii afarti jiradii cabaaday waxaan leeyahay hawl ninkaa xigo iyo arrin ninkaa xigo midna laguma degdegee kor oga haya kor waxaa rabo inaan ku weydiiyo kale qaybta buskudka qaybta buskudka horta adeer nin wax kuu dhiibay iyo nin wax kuu dhiibay horta isu kaa mid maaha wuxuu yidhi sooraan markii wax lagu dhibo wadax garataa anoo adeer geel iyo anoo adhi la jooga oo ilmo yara yaa kaartoon buskud cid muxuur waan ka hayaa laakiin mustafada kaartoonna kama hayo laakiin de kaartoon kuma aha intii jeel loo doonta waa in booska lagu keena sooma horta riwaayadihiin iyo wixiina ma arna adiga ninka cabdiweli ee fariidkii iyo laakiin anaga laftana gaaltirana wada xaraabanay moogta te waad arki lahayn xaraabooyinkanaga dee laakiin dee maxaa jira dee mawil-aan baa jirta sooma saas darteed macnihii dee iyadana aan macnihii isu arkayna dee annaga waxaan rabnaa wiilka fariidka cariyeere reer saaq inaan caawino
maamada ayidaan inaa caawin gabadha caruurta makaahil buu qarinayaa alool intaasu ka dhimanaya daahiro ilaahayna ma yaqaan rasuulna ma yaqaan bay ku tiri dabaqay degan yihiin dabaq iyagu ma meeshayna tustay baa dabaqa meeshayna tustay miyaa dabaqa daahiro oo baraha bulshada fiidiyowiis uu qabsaday ayuu madaxweyne cagjar wuxuu amray baa leeyahay anaga ma humne war official ma aha laakiin in la soo xiro dadkuna waxay u olaynayaan wiilkaasi madaxweynuhu inuu abaal mariyo uu casuumo oo lacag badan siiyo wiilku maxaa lagu haystaa wiilka waxaa lagu haystaa hadal run ah lagu haystaa marka Mustafa Cagjar hadduu xariif yahay wiilkan waa gangster yar wey sidaa daraadeed waxaan ugu baaqaynaa in lagu casuumo madaxtooyada telefoon qurux badan loo gado xoogaa lacaga la siiyo geeljirnimadiisana ma taqaanaa loo celiyo ninkan in loo baahan yahay way cariyana leeyahay